munaasabadani oo ahayd mid dhalinyarada iyo aqoonyahanka ka soo kala jeeda beelaha degmooyinka Beledhig Dhoqoshay iyo Xagal ku soo dhaweynayeen shirka guriga Samawan oo 22 bisha July sanadka 2017 la filayo inuu ka qabsoomo degmada Beledhig oo ka tirsan gobolka Togdheer. Dhalinyaradii ka soo qayb gashay shirkaasi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin martigelinta shirweynahaasi, waxaana sidoo kale beeniyeen dhalinyaro sheegay in shirkaasi gabi ahaanba lagu qaban karin degmada Beledhig. waxaan aad soo dhaweynaynaa oo ka hadlaynaa in magaalada Beledhig lagu qabanayo shirka dhalinyarada habar jeclo, taasoo geedo oo in habar jeclo ay isugu timaado cidina ayna sheegan karin magaaladeedina ay tahay habar jeclo cid kale leeyma jirto. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada dawlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya ee Ballijano, iyadoo labada dhanba aan degno oo beesheedu ay aad u ballaaran tahay. xagga Itoobiyana waanu degnaa, Somaliland waanu degnaa, Ballijano xuduud weeyaan qofna kama daxsoona. marka haddii aanu nahay dawlad deegaanka Itoobiya waan anagu waan soo dhaweynaynaa shirka halka laga qabayo aad gamca furan baan ku soo dhaweynaynaa. ciddii shirka joojisay ee hore uga hadashay raaligelin baan ka bixinaynaa. shirkuna wuu soconayaa. Suldaan Cali Loorin ninkii la oran jiray Suldaan Cali waa suldaankii ugu horeeyay ee habar jecel yeelato halkii lagu calaamad saaray waa Balkhayr weey. maantana Balkhayr nasiib waxay u yeelatay in shirweynihii habar jecelo dhammaan sidii kii garadag lagu qabtay in Balkhayr lagu qabto. ka waanu soo dhaweynaynaa, waanu taageersanahay. ciddii tiri shir laguma qaban karana raaligelin baanu ka bixinaynaa. dirci kale ahaantii daleel guusha kama helo dadka geesi lagu yahay. maansadaasi qof kasta ayagu waxay tujumaysaa dadku midnimo ayaa wax lagu yahay. shirka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa, dhalinyarada waan soo dhaweynayaa. waxa weeye dadkan yiri deegaankan Beledhig shir laguma qaban karo waa dad aad u khaldan. raaligelin waan ka bixinaynaa, xaal iyo boolshiisna waan bixinaynaa. Beledhig waa meeshii saldaankii u horeeyay ee magaca habar jecel sheegta lagu cumaamaday. dawladna ma khusayso, shakhsina ma khusayso, qabiilna ma khusayso, qofnimana ma khusayso. Soomaalidu waxay ku maamaadaa hamadiyoon guri hortaaday socdaan baa la yiri, gabow iyo geeriyada dabadaaday socdaan, khasaariye faa'iidana hareerahaagay socdaan. dan shakhsi leeyahayna dan qaran ma hor istaagi karto. horta marka hore taageeraya aan meesha u soo istaagay waxa weeye in shirka dhalinyarada aynu taageerno marka hore, marka xiga degmada uu ka dhacay ee Beledhig inaynu ku taageerno. iskuni waxa weeye sidaynu runtii u beenin lahayn dhalinyaro ku tilmaamtay degmada Beledhig in shir lagu qaban karin. waxaan leenahay anagoo dhalinyarada reer Beledhig baanu nahay, kuwaana waxaan leenahay xal baanu ka bixinaynaa iyo raaligelin iyo apologize oo halkan caawa ay isugu yimaadeen garaadadoodii, salaadiintoodii, cuqaashoodii. ka dhalinyar ahaan waxaanu soo dhaweynaynaa oo garab iyo gaashaan baan u nahay inaanu soo dhaweyno gacmo furan iyo niyad furan shirka ka dhici doona degmada Beledhig ay qabsanayaan dhalinyarada habar jecel kaga tashanayaan aayahooda mustaqbal. qoladii tiri shir laguma qaban karo Beledhig horta waxyaabo iska ceeb baa jira oo qofka bini'aadanka ka fiican inuu iska ilaaliyo markuu qof istaamay yahay. waxaa jira qof markuu wax diido waa inuu keenaa wax kale oo waxaan ku bedelayo. shirkan dhalinyarada beelahan soo baxday aanu ka war helnay oo ka war doonto sababtoo ah mas'uuliyad baa naga saaran arrimaha deegaanka inaanu ilaalino meelihii hawsha wadin. dhalinyaran markay baraha bulshada ku soo qoray dhalinyaro inay shirtaa waa ceeb oo af beelad ku shirtaa waa ceeb. waxaan u sheegay kan kii ugu horeeyay inaanu ahayn shirar badan oo dhalinyaro afraad lagu hadlaya baa ka horeeyay. shirkii beelaha Subeer awal ee Jiidali baa ka horeeyay, iyagoo waliba xisbi sita, xisbi xaakimka sita, xukuumadda xisbiga caaya oo dagaalamay. Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike, telefishka caalamiga Kalsan TV magaalada Burco.